Sannado badan ayaa lagu taamayay helidda deked ay yeelato degmo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug, taas oo qayb weyn ka qaadata kobaca dhaqaale ee dalka, sidoo kalena manaafacaad weyn u yeelata bulshada ku nool gobollada dhexe ee dalkeena. Bilihii la soo dhaafay degmo xeebeedka Hobyo ee gobolkan waxa ay cagta saartay horumarkii la naawiliyay. Ku dhawaad 10 hotel oo si casri ah loo dhisayo ayaa iminka ka socota degmadan, sidoo kalena kuwa kale ayaa la dhameeyay. Dhammaan waxaa maal gashaday ganacsato reer Galmudug ah. Siciid Cali Cosoble Siciid Nootaayo ayaa ka mid ah ganacsatada ku dhiiraday in ay door weyn ka qaataan horumarka ka socda degmadan, wuxuuna halkan ka hirgelinayaa hotel Hobyo oo ah mid casri ah. dhalinyaro badan ayaa subaxii u dareeraya shaqo abuurka laga helay maalgashiga ay sameeyeen ganacsatada gobolkan. Injineer Ismaaciil Siciid Gayfane wuxuu ka mid yahay injineerada gacanta ku haya hirgelinta hoteladan sida casriga loo dhisayo oo laga hirgelinayo degmo xeebeedka Hobyo ee gobolkan. Warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayuu u sheegay in tani u tahay fursad qaali ah maadaama cilmiga ay soo barteen ay dib ugu soo celiyeen gobolkooda. Magacaygu waa Ismaaciil Cali Saciid Maxamuud, kana tirsan injineerada dhisaayo magaalada Hobyo, especially labada dabaq ee ka socota Hobyo loo kala yaqaano Siciid Nootaayo iyo dabaqa Hotel Iftin. Ayaantan waxaa ku soo biiray injineero ka howlwadeen magaalada Hobyo dhismooyin kala duwan. Dabaqan wuxuu ka kooban yahay 5 biyaano iyo dabaq kale oo asagana Iftin wuxuu ka kooban yahay 5 biyaano. Magaaladan Hobyo waxaa ka socdo horumarino mashaariic kala duwan sida dekada oo mar dhow bilaaban doonto iyo dhismooyin kala duwan oo hadda dib loogu bilaabi doono. Dadka oo ku nool magaalada Muqdisho iyo dadka qurbo joogta ah waxaa kula talin lahaa magaaladan waxay u baahan tahay dad maalgashto oo maalgashi badan ku sameeyo dhulalkeeda iyo mashaariicda kala duwan ee magaalada. Cumar Maxamuud Rooble Cumar Suuri ku dhawaad 40 sano ayuu ku noolaa qurbaha, haddana waxa uu dib ugu soo laabtay gobolka sanadihii la soo dhaafana wuxuu ka fuliyay degmo xeebeedka Hobyo ee gobolkan mashaariic horumarineed oo shaqo abuur ay ka heleen bulshada ku nool gobolka, qaybna ka qaatay bilicda degmadan iyo kobaca. hadday fahansanaan lahaayeen dadku dalka way aamin lahaayeen. dadka gudaha joogana ma aaminsana, dalka muxuu ahaa dibadda joogana ma aaminsana dalka inuu barwaaqo yahay. anigu hadda waxaan joogaa muddo 15 sano aan joogaa. dhaqaalaha aan ka abuuro wadankan 40 sano oo aan qurbo joogo ka horeysay kama aanan abuurin. waxaad dareemaysaa in wadanku wax soo saar leeyahay inkastoo aan sidii rabay looga faa'iideysan. hadda kalluumaysiga kale haddaan kuu soo qaado xeebaheena kalluumaysiga waxa weeye wadamo waxaa jira sideen oo kale bad leh oo dhaqaaluhu badda uu ku tiirsan yahay, sida hadda wadanka Norway oo kale oo wadan qani ah ka badda wax kala soo baxaan. annaga badeeni waxaa ka shaqaysanaya shirkado ajnabi ah, maraakiib ajnabi ah. dadkii u dhashay waxaa laga yaabaa inaysan kala soo bixin, laakiin rag isku dayay oo diaspora jira oo halkan shirkado ka samaystay oo badda doonyo kalluun ka soo dabta oo gobollada dhan gaarsiiya. Dhammaadka sanadkan 2025 ayaa loo madlan yahay furitaanka dekada casriga ah ee laga hirgelinayo degmo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug bartamaha dalkeena, taas oo ka qayb gali doona sida qorshahu yahay ganacsato, mas'uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah, waxayna qayb weyn ka noqon doontaa kaabayaasha dhaqaale ee dalka, taas oo shaqo abuur ay ka helaan boqolaal qof oo ku nool gudaha dalka. wallahi runtii dekadaas waa dekad Soomaaliyeed weeye oo hadda ka qayb qaadan doonto horumarka dalka Soomaaliya. dhismaheedii waa dhaqaalihii iyo wixii dhamaa qorshaheedii dhan waa la soo dhameystirmay. shaqadeediina hadda bilow baa la wadaa. qalabkii wax lagu dhisi lahaa kulli waa yaala. muxuu ahaa shaqadii qaybo badan waa bilaabantay xaqiiqadii. Baasha Cali Xaashi, warbaahinta qaranka Hobyo.